dadkaba u wacan haddaan xiraale u baxo oo dhambaalkii qayla diro baahidayda bilowga dadkaba u wacan haddaan bacad weyn u baxo oo dhambaalkii qayla diro baahidayda bilowga الله بالين وبلوى عديهم يا الله بالين وبلوى أبهات لي ما يهي hooyadaatu macaan ma tahay kaliyayaal ma kula dhashee oo waxaan qaba loola tago abbahaa kaliya ma yahay hooyadaatu macaan ma tahay kaliyayaal ma kula dhashee oo waxaan qaba loola tago الله بالين وبلوى عديهم يا الله بالين وبلوى warshahagaajis baa i dilay sidii geedkaanu dharay oo sidii aarkaan u dhiyay guriyadaydii maragna warshahagaajis baa i dilay sidii geedkaan u dharay oo sidii aarkaan u dhiyay guriyadaydii maragna الله بالين وبلوى عديهم يا الله بالين وبلوى إن الليس بسواي وعلف أنا عيسى إيدين وعلف أنا حبس سيدي أنا نوغي والبحي بدودين وعلف إن الليس بسواي وعلف أنا عيسى إيدين وعلف أنا حبس سيدي أنا نوغي والبحي بدودين وعلف عرو اسكو ديلي دكينا إنا قوستيل بدينا حتى العاوة كبحلي على الميدة أي تهي على علم يشي وعافي مدبا وليد وحيد لا حتى العاوة توفيق على الميدة أي تهي على علم يشي وعافي مدبا وليد وحيد لا diilkii caradiina soo maray dagaladuna carcaarsa waa carab sidii dadis waayay isqabsatay ninba meelka carcaarta waa carab diilkii caradiina soo maray dagaladuna carcaarsa waa carab sidii dadis waayay isqabsatay ninba meelka carcaarta waa carab isku dilin dadkina inagoo isqiil badina haddaan caawa marka calool miida ay tahay calaa calma yeeshee u caafimad baa weligeed waheedila haddaan caawa shalambood calool miida ay tahay calaa calma yeeshee u caafimad baa weligeed waheedila haddaan caawa kabxaley calool miida ay tahay calaa calma yeeshee u caafimad baa weligeed waheedila haddaan caawa tawfiiq calool miida ay tahay calaa calma yeeshee u caafimad baa weligeed waheedila haddaan caawa marka calool miida ay tahay
على علم يشي وعافي مدبا وليجي بعيدنا هدان عاوى سلام بود على الميدا ايتاي على علم يشي وعافي مدبا وليجي بعيدنا farxad ayay tahay in intaan oo dhalinyaradeedii ah aan caawito kala soo qayb galo xalfadan quruxda badan leh oo ay qabsanayaan ruuxaantii aad baan idinku bogaadinayaa oo waa ka intiinaan oo dhalinyaro ah oo maanta joogta magaalada Gaalkacyo waxa laga yaabaa awal inaadan hore isku aqoon oo insan wada kulmi jirin markii calankan aniga aan arkay oo la sameeyay dhalinyaradii samaysay ama waqtiga gelisay Muqdisho ama Nairobi ku xalfadaha ku qabtay aad baan u soo dhaweeyay sababtuna waxay ahayd in dhalinyaradii goboladaas joogtay oo aan hore isugu imaan jirin ay yeesheen astaan midaynaysa oo ay isku gartaan oo intaas kulmisay marka taasna aad baan idinku bogaadinayaa dhamaantiin guul baan idin rajaynayaa wayna sii socon doontaa oo intaan kaliya ahaan looga harimayo in urur dhalinyaro ah oo ka shaqaysa midnimada iyo mataqaanaa sidii dhalinyaradu ay isaga warhayn lahayd ama la isugu keeni lahaa waa muhiim waaye ayadana insha Allah waa dhacaysa waqtigeedina waa la joogaa aad baan idin salaamayaa dhamaantiin